kulanti wacan u wanaagsan qayaarta hawada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo soo gabagabeeyay dooda ku saabsaneed cashuurta iibka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo xariga ka jaray suuqa kawaanka hilibka ee degmada Dharkeele ee gobolka Banaadir hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo shaqad gargaar u dirtay deegaanka Lambarkoton ee gobolka Shabeellada Hoose aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday wax ka bedelka xeer hoosaadka aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir oo deeq raashin ay soo aruursheen haweenka Soomaaliyeed ku wareejiyay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo soo gabagabeeyay ka doodista cashuurta iibka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo uu weliyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa shir gudoomiye kulanka 18aad kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ajendaha kulanka ayaa ahaa dhameystirka ka doodista soo jeedinta buushika xildhibaanada ee ku saabsan arrimaha cashuurta iibka iyo cabashada ganacsatada dooda xildhibaanada oo soo socotay kulamadii ugu dambeeyay ee golaha shacabku yeeshay ayaa la soo gabagabeeyay waxaana dooda ka qayb galay oo aragtidooda ka dhiibtay soo jeedinta cashuuraha iibka 85 xildhibaan waa wax wadan dawlad la ku fadhiyo cashuurtuna waa laga maarmaan cashuur in la bixiyo waa dawlad jiritaankeeda dan in dawladda aysan qaadin cashuur jiritaankeeda halis u galay balse waxa cashuurta haddana waxa muhiim ah in cashuurta sida loo qaaday haddana ay sidii loogu talagalay u marto oo si sax ah loo adeegsado marka waxa waaye anigu aragtidayda xagga cashuurta waa mudnaanta koowaad ee dawladda leedahay cashuurta in la bixiyo lana maamulo si qiimeyn ay ku jirto markii ganacsatadu ay muujiyeen dareenka ah ama cabashada ku saabsan canshuuraha ama dakhli ururinta dekadda gudaheeda ama suuqa ama koridoorada caasimadda in isla markiiba ay golaha shacabku arrintaas iyada ah ay ka jawaabeen waana ku mahadsan yihiin waxaan sidoo kale rabaa inaan qiro wixii wanaagsan iyo ficilkii wanaagsan waa la isla qiraa qofkii libin dad leeyahay u diidana waxa weeye gobonimadiisa wax u dhimaysaa isla markiiba xukuumaddu waa ka jawaabtay shir degdegay qabatay ganacsatadii waa la shirtay dekadda gudaheeda lagu shiray ra'iisul wasaaruhu waa la shiray xukuumadduna waxay ka soo saartay qaraar inaynu cashuur ka hadalnaay waa mid muhiim ah wayna socon doontaa maanta kaliya maxaa yeelay nidaamkeena cashuurtu hadduunbuu dhismayaa hadduunbuu kobcayaa oo runtii u baahan muddo dheer buu qaadanayaa inuu fadhiisto oo istaago balse cashuuruhu waa waxa had iyo jeer isbedela ee muxuuha dynamiga wey muxuuhaayey had iyo jeer dib u eegis wax ku dar iyo wax ku dhin lagu sameeyo dowladaha haddaad aragto waxaan malaynayaa shuruucdooda qaarkood waxay u bedelaan 3 biloodba ama 6 biloodba ama sanadkiibay bedelaan si ay marka ula jaan qaadaan nidaamka dhaqaale markaasi uu dalku ku tiirsan yahay qaabka uu shaqeeyo iyo hadba duruufta jirta bulshadooda ka jirta ayuu muxuu la jaan qaadaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in guddiga maaliyadda loo xil saaray golaha shacabka ku soo celiyaan
arrimaha ay ka doodeen xildhibaanada iyo cabashada ganacsatada guddiyada shaqo adag ayay hayaan. waxaa inoogu maqan 3 guddi. maanta guddiga maaliyadda ayaa arrintaani dooda cashuuraha u saarayna muddo kooban. waa in golaha shacabka warbixinta faahfaahsan u soo gudbiyaan wixii sharciga waafaqsan iyo arrintan culeyskeeda waxaa keenay ayuu yidhi guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe. waxaan rabaa doodii inaan maaragtay meel dhal inay noqoto. guddiyadii hore dadka qaar waxay qabaan doodoodii dadkii la saaray ma soo celinin bay qabaan. guddiyadii shaqadooda waa ku jiraan. 3 guddiyaan noo maqan waana soo dhow yihiin dhammaantood shaqo adag ay ku jiraan. kan haddana waxaan u saaraynaa guddiyaan u saaraynaa si hawda maaragtay ay noogu soo qulaasayaan maadaama arrinta muhiimadeeda ay tahay. waxyaalo kale ku dhex jira waa jiraan laakiin nidaamka canshuurta cusub yaa arrinta maaragtay xooggeeda ka bilaabaday iyo buuqa keentay. marka waxaan u xilsaaraynaa guddiga maaliyadda. waxaan leenahay in maaragtay muddo kooban noo soo khulaaseeyaan ee golaha ku soo celiyaan ayaga oo fiirinayo wixii sharciga khilaafsan wixii in la fulay ahayd la fulin waayey wixii sharciga khilaafsan waxyaalaha dhibaatada keenay waxaas dhan ay buuqa keenay ayaga oo soo khulaasay inay golaha ku soo celiyaan. marka ayaga noo keenaan yaan go'aanka mudambeysa ka gaaraynaa. aad iyo aad ugu mahadsantihiin. guddoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in warbixinta guddiga maaliyadda kadib ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya go'aan rasmi ah ka soo saari doono. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo xariga ka jaray suuqa kawaanka hilibka ee degmada Dharkeelle ee gobolka Banaadir. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaane ayaa daafuray wareejinta kawaanka hilibka suuq Bocle ee degmada Dharkeelle. duqa Muqdisho oo munaasabada ka hadla ayaa sheegay in dib-u-dhiska lagu sameeyay kawaanka oo qayb ka yahay qorshaha lagu horumarinayo suuqyada iyo ganacsiga magaalada Muqdisho. waa maalin kale oo taariikhi ah oo ka mid ah maalmihii waxqabadka iyo horumarka caasimadda magaalada Muqdisho oo maalinba in aan ku daraynay inta aan joogno cid kastana ay waajib ay ku tahay inta ay joogto inay waxay qaban karta ay qabato. waxaan halkan salaan qiimo badan uga soo gudbinayaa mas-uulka ugu sarreeya FAW ee nala joogo saakay halkan oo nagala soo qayb galay xarig jarka mashruuca kawaanka suuqa Dhammayaasiin Cartan oo runtii ah kawaan taariikhi ah suuq taariikhi ah inaan dayactirkiisii ay gacan nagu siiyaan FAW mas-uuliyiinta kala duwan ee runtii uu ka dhawaajinayay agaasimo Dhicisow oo juhdi badan ku bixiyey inay halkan ka suura gasho mashruucan asiga ah. waxaan leeyahay dhammaantiin waa ku mahadsantihiin. mahadcelintaas kadib waxay noo tahay maalin taariikheed ayay noo tahay. maanta waxaan leeyahay reer FAW nagula soo dhowaada maalinta badarka. waa yoomul badar, waa maalin robabaab, waa maalin barwaaqo iyo nicmo leh, waa maalintii aan furayna suuqii. taasna waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sida casriga ah oo maaragtay u dayactirtaan. laakiin waxaan aaminsanahay mar kastaba isku tashi wax la yiraahdo inaan annaga wax qabsanno waxna aan quruxsanno. xildhibaanada golaha aqalka sare oo ka dooday wax ka beddelka xiroosaadka aqalka sare. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdulaahi Cali Xirsi Timacadde ayaa shir guddoomiye kalfadhiga sharaad kulankiisa 13aad oo ajadihiisu ahaa sii wadista doodaha wax ka beddelka xiroosaadka aqalka sare. sidoo kale qodobka baarlamaanka waxaa lagu bedelay golaha aqalka sare. qodobka 62 ee farqadii 8 waxaa lagu bedelay toosin xagga luuqad ah ayaa lagu sameeyay. qodobka 62 farqadii 10aad oo farqad cusub oo qodobka 64aad waxaa lagu daray farqad cusub oo dhigaya qodobka 1aad faahfaahinaysa maalmaha shaqo ee guddiyada golaha aqalka sare. cutubkii ka horeeyay waxaan uga hadalnay maxallaay maalmaha shaqo maadaama golaha shacabka ay shaqeeyaan maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Sabtida. dooda sanatarada ee wax ka beddelka xiroosaadka aqalka sare oo si gaar ah
loo dul istaagay qodobada ugu muhiimsan xeer hoosaadka ayay ku soo bandhigeen aragtidooda qodobada iyo farqadaha u baahan wax ka bedel iyo toosin kuwa kalena lala akhriyay dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka. xeerkan ma aha midkii aqalka awoodihiisa iyo karaamadiisa muujin lahaay, waa mid hoos u dhigaya kaliya in lagu soo koobo shaqada la qabanayo, maalmaha shaqada, xaadirinta iyo sida loo imaanayo fadhiyada, sixitaan iyo siiqayn xeerka in lagu sameeyo. أنا waxaan qabaa xeerkan dib ha loo celiyo kii hore oo aqalka uu lahaa hana loo daayo inta dastuurka dib u eegista ku socota laga dhameystirayo. markii dastuurka dib u eegistiisa la dhameystiro aqalkan awoodihiisa ka maqan ee uu sharciga u leeyahay lagu muujiyo. marka waxaan aad u taageerayaa labadii sanatar hore arrinta furtay dastuurka oo ah maqnaanshaha ama mataqaana waxa laga yeelayo in koorumka buuxsamo. waxaan qabaa guddoonka iyo dhammaan habdhowruhu ku jira inay iyagu qoraal soo saaraan inta dastuur laga dhammaystirayo. waxaan aad iyo aad u sakan garaynaya walaalihii iga horreeyo hadlay oo ahayd annaga sideeda sharci kasta oo la sameeyo iyo sharci kasta oo aqalkan la hor keeno haddaan la dhammayn oo aan meel la saarin dastuurkii heshiiska lagu haa oo qaybna wax la iska yiri 4 qodob la yiri 11 qodobna dhiman tahay haddaan la aadin wax kasta oo aan ka shaqaynaa waxay noqonayaan wax biyadeys leh. wax badan aan xeerosaad ka doodaynay anoo qaba in sidii hore lagu soo celiyo inta aan weyn lahayn awoodaheena qaar waa in awoodeena si ay u jirto aan soo celinaa xeerosaadkeena hore kaliya meelaha aniga aan isleeyahay ha laga taabto ay tahay attendance-ga qodobka attendance-ga ka hadlaya iyo maqnaanta sidii lagu xadidi lahaa. wax badan oo awoodda golaha ah dastuurkiisa uusan sheegayn waxaan ku raacsanahay oo saka gareynayaa inaynu la sugno inta dastuurku dhammaanayo. wax ka beddelka hadda ina horyaal waxaan qabaa anigu in meelaha yararka ah oo loo baahan yahay lagu soo koobo. qodobka 83 ee xeer hoosaadkeena waxaan qabaa in ma aragtay sidiisii hore loo daayo oo ahayd su'aalo xukuumadda lagu weydiinayo jawaab oraah ah iyo qoraal. hadda waxaa ka soo dhigteen su'aalo weydiinta xukuumadda. ugu dambeyn gudoomiye Tima Cadde oo kulanka soo xiray ayaa bogaadiyay dooda sanatarada ee maalmihii la soo dhaafa ka yeeshay wax ka beddelka xeer hoosaadka aqalka sare. waxa uu faray xubnaha guddiga xeer hoosaadka inay soo qaabeeyaan aragtida sanatarada ay ka dhiibteen wax ka beddelka xeer hoosaadka. doodii xeer hoosaadka halkaas ku dhamaatay in guddigii iyo xogayaha iyo tiimkii dib la isugu noqdo la soo habeeyaa la rabaa dadna golaha la keeno. goluhu marka isaga doodii iyadoo la eegayo doodii sanatarada iyo qaabkii loo dooday taasi waa taas halkaas naga xidhanta. waxaa jirtay maalintii Isniintii waxaa laga dooday soo jeedin la xiriirtay arrimaha shaqada dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo aqalka sare. doodaasi dood fiican bay ahayd. waxaan rabnaa taa lafteeda in guddi loo saaro oo ka soo tala bixisa dawladna ku soo celisa guddoonka. taas intaas uma rabay inaan idinku wargeliyo. aad iyo aad baa mahadsantihiin. shirkuna waa inoo xidhan yahay. guud ahaan warkii telefishinka Ilaac waa dhagayta.